qabowga faraha badan leh ee maalmahan cimilada isbedeshay ee ka dhacaya magaalada Boorama ayaa waxa uu sababay dhaxan aad u fara badan taasi oo iyadu markaasi culays badan dadka magaalada degan iyo agagaarkeedaba ku haysa. Haddaba khadka telefoonka oo uu saxaafadda kula soo xidhiidhay gudoomiyaha degmada Baki ee gobolka Awdal jaamac maxamed jaamac ayaa waxa uu sheegay in ay sababtay dhaxantaasi in ay xoolo ilaa iyo hadda tiradooda aanay xadidneyn ay ku dhinteen meelo kala duwan. Dhaxantaasi oo markaasi iyadu si yaabo kala duwan u saameysay dadkaasi ayaa waxyeello culus ku haysay buuri dadka markaasi baadiyaha iyo meelaha tuulooyinka fogfog degan, gaar ahaan meelaha joogoodu aadka u hooseeyo ee dooxyada ah. Dadka degan ayay markaasi dhibaato aad u fara badan ku haysaa. Xalay iyo habeen hore ayaa waxay ahayd habeenadii ugu qaboobeyd iyada oo ku dhowaatay 2 digrii centigrade ee habka lagu cabiro markaasi kulaylka iyo qabowga ee magaalada Boorama, taasi oo markaasi iyadu haddii ay intaasi sii dhaafto keeni karta waxyeello intaasi ka badan. Waxaad ku arki kartaa dadka magaalada Boorama ku dhaqan iyaga oo markaasi culays aad u fara badani ay ka saaran yihiin dhinacyadaasi. Dhinaca kale dowladda hoose ayaa waxa ay bilaabaysaa in ay wado sameyn ka bilowdo meesha loo yaqaano hangarka iyo markaasi bacdii hore halkaasi oo marama dadkii bacadlaha ay jidka deganaa dabeeto intaasoo sannadood bay jidka deganaayeen. waxaan ka samaynay oon annagii hay-adda habitay ku heshiinay in la dhiso. iyadoo markii halkaasi hoggaanka dowladda hoose gaar ahaan xogayuu uu ka hadlaya ay dumar fara badan ku urursanaayeen isla markaasina ay sheegeen waxa uu yidhi dowladda hoose la dhacday ma jirto waxa abeeraatee dadkooda Soomaalida waad garanaysaa nin walba waxbuu iska sheegtaa eedayn buu sheegtaa. waana kule hangarkan markii horse dumar baa deganaanay hangarkii bannaanaabuu ahaa qolol baanu bedelnay dumarkii halka awal fadhiisan jirayna waan garra kalaan dhisnay. marka waxaa jira dad kaloo iska dhex karoora oo le annagaa xaqu le annagaa hooyadayo miciiday baa fadhiisanaysay 3 sano kahor dad le way jiraa. waa been waa propaganda. si kastaba ha ahaatee marumaha dhulka ayaa waxa uu ahaa mid isagu soo noqnoqonayay maalmahanba oo ay ku kala bixi laayeen labada dhinac. Xasan Ciise, SNN, Boorama.